بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية كدib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxa uu soo saaray bayaankan ku xadgudubka sharciga warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka ku meel gaarka ah ee qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobka 87 iyo 9aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu uu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. labo madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 9aad ee dastuurka xarfihiisa A B C D E F G H kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dowladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dowladda waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka 100aad ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka 103aad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda. 4 madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 9aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan. 5 haddaba iyadoo laga duulayo sareynta sharciga ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4aad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo kaliya go'aanada waafaqsan dastuurku wuxuu cadeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee. carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadaynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. 2 nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiigu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii. madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyey ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka waxa uu sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27 May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ah ee madaxweynaha 12 Abriil 2021 uu sameeyey. 4 si la mid ah xasaradihii la abuuray madaxweynuhu 25 bishii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha Muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damciisii ahaa in uu dalka ku soo celiyo colaad sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn uu ku sii joogo xafiiska dalka ugu sarreeya. 6 dardargelinta howlaha hay'adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobada 9aad iyo 100aad iyo 103aad ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka. 2 si waafaqsan heshiisyadii 17 Sebtembar 2020 iyo kii 27 May 2021 iyo 22 Agoosto 2001 ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhamaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka. 3 ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay fududeeyaan
oo u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka. 4 si waafaqsan qodobka 127 faqradiisa ba c ama ca iyo ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed, ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga iyo hay'adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana ay sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. ra'iisul wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka uu ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafhurnimada leh ee ay ugu adeegayaan dalkooda, waxuuna u xaqiijinayaa in xukuumaddu ay ka go'an tahay joogtaynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. 6 ra'iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda dalka, waana in hay-adaha maaliyaddu ay ku taagnaanta iyo hogaansanaanta wareegtadii uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray 9kii bishan oo ku salaysnayd isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. baaq 1 sida uu qabo qodobka 3 ee dastuurka ku meelgaarka ah, ra'iisul wasaaruhu waxa uu xusuusinayaa madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'daas aasaasiga ah ee kala socnaanta awoodaha hay-adaha dowladda, joojiyana faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayayo inuu hor istaago kiiskii cadaalad u helidda Ikraan Tahliil Faarax. 2 ra'iisul wasaaraha isagoo ilaalinaya danta guud iyo qaranka iyo nidaamka dowladnimada waxaan ugu naseexaynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyada doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha. 3 ra'iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, ilaaliyaan nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto howlaha doorashooyinka dalka oo hadda wadada kaliya ee u furan ee laga baaqsan karo in dib loo noqdo. 4 ra'iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhamaystirka doorashooyinka iyo ka hortagga isku day kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka, waxaana si gaar ah u xusuusinayaa in il gaara lagu hayo shakhsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darrada siyaasadeed iyo mid amni. ugu dambeyntii ballanqaad xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u ballanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoogga saarayso dhamaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah. Wabillahi tawfiiq.